aniga waxay ii tahay fursad dahabi ah in dhowr iyo 10 milyan ee Soomaaliyeed la iga xusho inaan noqdo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo aan la shaqeeyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xafiiskan doorkiisu uu ra'iisul wasaare ku-xigeenku inoo sheegay ee ah mixwarka ama injiinka dhaqaajinaya siyaasadda dalka fursad dahabi oo la siiyay weeye ilaahina waxaan ka baryayaa in aanu igu ceebeen ay xilka igu asturo madaxdu marka aad bay u mahadsan yihiin walaalayaal doorka xafiiska iyo hadalka intii sii badnayd maanta ninka xilka wareejinaya ayaa lahaa annaga waxaan ku rajo weynaa 4 sano ka bacdi inaan sida u warramo hadday igu sinto maanta se waxa la iga fishaa waa inaan idinla wadaago fahamkayga doorka la rabo in xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu fuliyo waxaynu ku bilaabmaysaa aragtida ra'iisul wasaaraha iyo barnaamijkii siyaasadeed ee uu geeyey baarlamaanka ee la ansixiyey iyo afkaartii iyo aragtiyihii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed uu ku galay doorashada kuna guuleystay ayaa xafiiskan marti looga yahay inuu u bedelo siyaasado shuruuc barnaamijyo iyo istiraatiijiyo kamira dhaliya hadafkii weynaa ee hadda caan baxay ee la yiraahdo Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la marka DBM ku sidiisaba ama ku-xigeenku iska nooc mid turjumaan wuxuu ka turjumaa afkaaraha sidii shaqo lagu bedeli lahaa marka in yaro turjumaannimo ayaan halka gashanaya Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la maxay tahay waxaanu rabnaa inaynu u fahanno arrimahan soo socda waa Soomaaliya sharciyad ku dhisan oo ku qodonta oo dastuuriya iskuna matasha iskuna doorata hanaan dimuqraadiya kuna shaqaysa federaal intaas oo la dhamaystiro oo dhidibada loo aaso ay arrintaas horta noqonaysa marka shaqooyinkii hore u socday ee faraha badnaa halkan aynu ka qaban jirnay ee gudiyada kala duwan ama tiirarka kala duwan ee golaha wasiiradu ay qaban jireen ayuunbaa la sii wadayaa la sii kabayaa lana waafajinayaa afkaarta iyo aragtida madaxda hadda dalka ka talisa walaalayaal waa maxay ahmiyadaha ugu waaweyn ee laynaga sugaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu inooga warramay wixii soo qabsoomay waxa laynaga sugayaa waxa weeye kobcinta iyo kabidda wixii soo qabsoomay iyo horuwarideeda iyo soo kordhin afkaar cusub oo dalka lagu hogaamiyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inta goor ay hadleenba waxay aad uga dhawaajiyeen ahmiyadoodu inay tahay amni waa flagship programka dawladani waa ka weey amnigi marna isaga ayaa dhalaya guulaha laga gaadhayo meelaha kale bil masalan hadaynu wax barasho iyo caafimaad iyo adeeg bulsho iyo ururin dakhli iyo dhaqaale ilaan dawladnimo dhaqaale kama maarantee waxay intaasba ku suurta galayaan oo guulo buuxa laga gaadhaya marka amni la hayo dhanka kale haddaad u rogto guulaha aagaga laga gaadha waxay suurta galayaan amnigu marka laba dhinac buu leeyahay marna waa enabler oo isaga ayaa suurta galinaya guulaha la filayo in siyaasadaha kale laga gaadho marna guulaha siyaasadaha kale laga gaadho ayaa amniga suurta galinaya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ka ra'iisul wasaare ku-xigeenkaba waxaa laga rabaa inay barnaamijyada suurta galiyaan walaalayaal waynu ka dheregsannahay geedi socodka deyn cafinta iyo guulihii laga soo gaadhay iyo kuwa hadda la rabo in laga gaadho waxaynu ka dheregsan tahay pilarka arrimaha bulshada iyo waxyaabaha wanaagsan ee ka qabsoomay siyaasadda loo dhan yahay anigu saan horeba idinku sheegay si joogto ah baan qayb ugu ahaan jiray arrimaha oo xilliyada qaar waad garanaysaan doorashooyinkii doodaha adkaa ra'iisul wasaaruhu hadda uu xusayay oo la rabo inaan dib ugu noqon in sanad walba meel ciriiriyoon ay gasho chairman baan ka ahaan jiray marka waxaan ka dhaxlay xirfado ii fududaynaya in si wada jiro wadar ogola looga shaqeeyo arrimaha xasaasiga ah ee u baahan in si daryeelan oo feejigan loo galo waxaan rabaa marka amniga mar haddii aynu niri waa ahmiyadda u weyn
focuska la saaray arrimahan soo socda waa maxay dhowrka qodob ee kale iyana loo baahan yahay inaynu indhaha ku hayno ayaamahan dhow wada xaajoodkii iyo wada hadalladii ilaa haddana dhex maray madaxda waxaa iga soo baxday abaaruhu sida aad wada ogsoon tihiin inay yihiin arrimaha u horeeya ee ahamiyadda weyn la siinayo ayaan darra weeye in kal walba iyo sanad walba lala derso abaar soo noqnoqota oo ra'iisul wasaare ku-xigeenku waa kii inoo sheegayey markii xukuumaddii hore la doortay abaar bay la koosatay tii mid la mid ah ayaynu haddana ku jirnaa dadaaladaasi waa kuwa u waaweyn ee mudnaanta hadda la siinayo walaalayaal awood walba iyo tamar walba aanu leenahay waxaanu gelinaynaa horta in abaaraha laga jawaabo ayaamihii u dambeeyeyna shaqooyin xeer xafiisa ayaanu ku jirnay istiraatiijiyada arrimaha laga geli lahaa aniga ra'iisul wasaaruhuba dhowr kulan baanu galnay marka abaartu top priority bay inoo tahay amniguna sidoo kale waxaa intaa barbar socon doona arrimihii siyaasadda waxa la yidhaahdaa gunbay ka tolan tahay dalkan siyaasaddiisa iyo sharciyadiisa iyo hay'adihiisa dowliga in dhidibada loo aaso sidii hore loo wadi jiray iyo si kasii durugsan baa loo wadi doonaa dib u eegista dastuurku priority weeye dimuqraadiyeynta daadejinta maamulka federaaleynta arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin xukuumad u fara dhuudhuuban arrintan oo u diyaarsan xukuumadda hadda la magacaabayna khibrad durugsan iyo waayo-aragnimo iyo firfircooniba golaha wasiirada ilaan golaha wasiiradu si wadajir u shaqeeya way ka buuxdaa waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ra'iisul wasaaraha gacanta midig iyo bidixba u noqono oo aanu barbar taagnaano insha allahu tacaala hay-adaha dawliga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwanna waxaanu ka filaynaa inay si joogto ah noola shaqeeyaan si wadajir ah aanu u wada shaqeyno hadal badani maanta inooma furna dardaaranka ayna siiyeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxa weeye in xil wareejinta ayaamo kooban lagu dhameeyo oo aan xaflado waaweyn maanta waad aragtaan halkan ayaa lagu wareejinayaa xilkii ugu weynaa ka ra'iisul wasaaraha ku soo xigay marka xaflado waaweyn iyo khudbado dhaadheer hadda diyaar looma aha xaalad abaara lagu jiraa waynu dedejinaynaa si loo dhaqaajiyo gaabkii gashay xilligii doorashada dowladnimada oo wasaarad walba iyo hay'ad waliba ay doorkeeda u qaadato inahaasaan ku soo koobayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen ha ina waafajiyo inaynu dadkeenna habka ugu habboon ugu adeegno waxaan ku xisaabtamayaa ma uun aha garashadayda iyo taageerada madaxda iga sarreysa waxaan ku xisaabtamayaa hablaha iyo inamada iyo waayo aragga ruugcadaaga ee xafiiskan ka tirsan ee aan ogahay duruufaha ay ku soo shaqeeyeen maanta meeshan quruxda badan inaynu fadhino 10 sano ka hor ragga qaar ma haysan hadda nin waayahana wax ka ogbaanahay idinna waxa la inaga filayo waxbaad ka ogtahiina guul baan inoo rajaynaya dhammaantiin waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan si gaara ugu mahadceliyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka saaxiibkay Khadar oo in badan aanu soo wada rafiiqnay haddana aanu xilka la kala wareegayno waxaan qadarinayaa oo aan qirayaa doorkii uu ka soo qaatay qaybaha kala duwan ee ay u kala baxaan shaqooyinka xafiiska ra'iisul wasaaruhu samirkii iyo dulqaadkii uu muujiyey xilliyo badan oo ay siyaasaddu qaraareed marka isna waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mataqaanaayay mahad celiyo wuu sheegay wuxuu yiri xilku waa meerto marka hadduu soo meerana waxaan u maleeyaa in halkii ugu habboonay uu ku soo meeray waad mahadsantiin